axyadii habeenkii xalay ahaa ka dhacay laba masaajid oo ku yaala magaalada Sanca ee wadanka Yemen ayaa haatan dhimashadu ay maraysaa in ka badan 100 ruux iyadoo qaraxyadaas ay geysteen xoogaga Daesh. qaraxyada noocan oo kala ah oo kusoo badanaya masaajidada ay ku badan yihiin dadka Shiicadu ee ku dhaqan magaalada Sanca ee xarunta wadanka Yemen ayaa waxay ahaayeen qaraxyadii ugu xumaa ee muddo aad u dheer ka dhacay magaalada Sanca ee xarunta wadanka Yemen. qaraxyadan aadka u xooga badan ayaa waxay kusoo beegmeen waqti dagaal aad u culus u dhexmaray xoogaga Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen iyo xoogaga Sacuudiga uu hogaaminayo oo guluf colaadeed oo aad u xoog badan kusoo qaaday fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada Xuutiyiintu. dhinaca kalena saraakiisha ciidamada boqortooyada Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in ay guulo military oo aad u xoog badan ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen xoogaga Xuutiyiinta walow dhinaca Xuutiyiintuna ay sheegteen marka inay si weyn ugu jabiyeen ciidamada Sacuudiga weerar marka ay kusoo dalka Yemen ayaa guud ahaan haatan waxa ka bilaabmay howlgal military oo aad u xoog badan iyadoo la sheegay dad aad u tiro badan oo qaxoonti yihiin marka inay guryahoodii ay ka qaxeen weeraradan ugu dambeeyay ee boqortooyada Sacuudiga ay ku soo qaaday qaybo kamid ah goobaha ay markaa Xuutiyiintu ay ku sugan yihiin ka dagaalama guud ahaan dalka Yemen.